Xaafadda BP1 ee magaalada Mandera oo ah xaafad istiraatiiji ah oo ku taalla halka ay iska galaan xuduudaha dalalka Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa wajahaysa caqabado dhanka horumarineed oo shacabka deegaanka si weyn ay uga cabanayaan. Xaafaddan oo sidoo kale ah halka uu ka bilowdo xuduudka Kenya ee Border Point 1 waxaa ku nool bulsho isugu jirta xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaasoo door muhiim ah ka qaata dhaqaalaha deegaanka. Qaar ka mid ah shacabka BP1 oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa soo bandhigay baahiyahooda aasaasiga ayagoo ugu baaqay dowladda countiga iyo dowladda dhexe in ay u dhammaystirto mashaariicda horumarineed ee weli qabyada ah. Waxay si gaar ah u codsadeen in loo dhammaystiro waddada laamiga ah oo ka timaada bartamaha magaalada Mandera. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay in xaafadda aysan lahayn nalalka waddooyinka ee street light inkastoo ay ku taallo goob istiraatiiji ah oo muhiim u ah ammaanka iyo socodka xuduudda. Intaasi waxaa dheer, shacabka ayaa dalbaday in la horumariyo bilicda xaafadda ayagoo codsaday in geedo lagu beero hareeraha waddooyinka si la mid ah xaafadaha kale ee magaalada Mandera. Dhinaca kale, shacabka xaafaddan ayaa baahi u qaba adeegyada nadaafadda iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen inaysan haysanin gaadiid qaada qashinka sida xaafadaha kale ee Mandera, taasoo ay sheegeen in ay saameyn ku yeelatay nadaafadda deegaanka. Ugu dambeyn, shacabka BP1 ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda shaqo abuurka dhalinyarada iyo haweenka si loo yareeyo shaqo la'aanta loona xoojiyo horumarka bulshada. County imefanya bidii sana kwa njia mingi حق education noqota iyo meel bay noqota county waxyaalo badan oo sameysay oo bidii ku sameysay jiraan, laakiin hadda waxaan caawinaynaa waxyaalo yar oo maaragtay magaalada aan uga duwanahay ama less percentage aan ka qabna ayaan soo jeedinaynaa. taas waxaa ka mid ah laamigii magaalada ka soo baxay oo ilaa xaafadda in nololkeen u baahannahay maadaama meeshaas laami ku daahay siin rooba iyo dhaxdooda aad meesha taagan yahay. waxaan doonayaa in magaalada nolol soo gaarsiiyo. mid kale oo saaxiibay ay sheegeen waxa weeye xagga korontadii magaalada Karabar koronto ma leh in nolol dhamaashtir waa rabnaa. yaa taato magaalada maadaama aan joogno anigu meel dheer waan fiirinaynaa, focus badan ku haynaa from Garba Qoole to Border Point 1 meel kasta meeshii waxyaalo laga sameeyay iyo meeshii wax laga sameeyay oo lagu seexday giddi waan kala fiirinaynaa. marka meel badan oo leg behind aan ka qabno oo anaga aan maartay waxba aan ka haysan ay ka mid tahay meeshii geed abuurka iyo meeshii oo empowerment xagga women iyo youth noqotaaba maadaama hadda dhulkanaga geedihii ay abuur ku yirhiin dadka awoodi karaan inay barkada sameystaan ay geed abuuraan. county waxaan ka rabnaa sidii Garba Qoole iyo aagas barkada biyo iyo maaragtay geed abuur nool sameey dadkina ay meesha shaqo ay ka helaan. mid kale xagga dhalinyaradii youth empowerment meeshanada zaid bay dhalinyaradana waxba kama haystaan xagga countyda almost 5 hatta 2% 3% amal 3% khalqa county Mandera 3% ana kama haysan xagga empowerment-ga dhalinyarada inay ilmaha iska tuuriyihiin. meesha waa saddex xuduud dhaxdoodan fadhinaa. dhalinyarada waa inay mahalin baali ama mahalin baya maana waa curyaamana waa cilnaynaa. marka maadaama shaqo abuur iyo waxyaalo la sameyn lahaa ama gaanjooda la qoray waxyaalahan ay maartay wax ka qayb gal lahayeen motivation waxayna waa ku farxilayeen seasonaytu ngefuraya ano ah magaalada intaan ay noo jirtaa waa 5 kilometers. waxaan u maleynaa 3.5 kilometers ali roba noo dhis iyo xilligiisa la dhisay ama asaga ha dhisa ama NGO ha dhisa xilligiisa la dhisay. anti yarada soo hartay waa 1.5 waxaan ka badnaan ama 2 kilometers waxaan ka badnaan. codsiyaan wadana codsigaas oo ah in maaragtay 2 kilometers nolol dhamaystira countigan maaragtay intay hadda jiraan ay noo dhamaystiraan si ayagana hadhow ay wax nooga sheegtaan oo noo dhaxan intaana idin qaban. waa qodobka koowaad. midka labaad, waxaan aragnaa tuulooyinka kale oo degan maaragtay magaalada nala degan sida Neeboy, Garba Qoole ilaa maaragtay Shafshafi. wadooyinka waxay leeyihiin geeda oo la waraabinayo leeyihiin geeda ku yaala shaqaalaha lagu qoraa oo shaqaalaha joogto mashaar ku qaadata. annaka 5 qof ama 2 qof oo biiboon joogto oo geed waraabini oo geed waraab lacag ka soo gasha ma jirto. meesha oo markii xilligii hatta Daniel Aramoy
xilligiisii markuu mandheero soo degay socodka wuxuu ka soo bilaabi jiray biibwan waa isha koowaad oo aragtida biibwan laga bilaabo oo mandheera qofkii rabo hataa dhiisigii la soo bedela meesha koowaad oo aragtida uu ka bilaabo waa biibwan haddana bilicdeeda uma eka sida meelaha maaragtay meel oo sidaas muhiim u ah uma arko waxaan rabnaa arrinkaas asaga in laamigaasna loo dhimaystiro wadooyinkaas maaragtay geedo lagu abuuro oo shaqaale naloo qoro ugu yaraan 50 shaqaale ama ka badan naloo qoro sida meelaha kale ay yihiin taangiye naloo qodo wadada afkeeda lagu qodo oo maaragtay shaqaalahaas naloo sameeyo dhalinyartaanada gabdhaha anaga oo baaqmundada oo shaqada haynin inay meeshaas shaqo ka helaan aan rabnaa waxaan ka codsanaynaa anaka qof maaragtay aan ku cambaaraynayna ma hadda aan maaragtay ku aflagaadaynayna ma jirto laakiin wixii aan xaq u lahayn haddii naloo keeni waayin anaka hadlayno anaka biibwana joognaa biyawda point 1 anaan lahaa marka waxaan meeshaan ka hadlaynaa galab isku keeni cabasho oo maaragtay dadweynaha ay soo cabadeen oo wadaxumo si hadda ninka hortay aad sheegay wadaxumada ka jirta isbitaalka ku jirto wadooyinka geed abuurka dhalinyarta youth yani markaas markii doorasho imaado waxa la yiraahdo youth empowerment ay dadka ay dawladda dhaysaa anaga youth empowerment wax la ma qabna mideeda kale isbitaalka dispensary dhowr jeer codsani ma qabna laboratory ma qabna meel wado bilcamal lagu mulay ma qabna marka waxyaabahaas fara badan aan marta aan ka codsanayna dawladda ka codsanayna hadda biyo nafteeda biyihii maanta waxaan noo geli biyaha noo geli hadda ma waa nala fadhi bisha waa naga fadhiya motorka marka waxaan aad ugu xusanay cid horta aad ay ooman tahay dhinacan kale biyaha beeraha xagood roob maanta dhacay beerihii laba dhinacba waxa galay biya galay hadda lama mar kale beerihi way xiriin aydan xoog bulshkiran iyo maaran ma rab lehni margaafana hadda waxaan ka codsanaynaa waxyaabaha aan ka tabanahayn in maartay na taxgiliya si hadda maartay busley meelahan kale noobey waxyaabo fara badan loo qabtay wada laba dhinac waa geed abuur wax baa ka jira bilcaamaha iyo waxyaabahan kulli maartay shaqo nool geliye dhalinyarta geed abuur hatta boolafteeda ma qabna gaariga qashinka xaybinay magaalada waa jira boolada qashinka lix waay bilcaami qashinka aruurnay oo maartay nool qoro meel dumping maxal qashinka lagu shubo dumping site nool sameey maxay booladii dad roobda ah taacoonki wax baa bilaabana in gaariga baali maartay meesha qashinka lagu shubo la keenay meel 3 iyo 4 meel nool dhiga oo qashinka noogula shubo nagala qaada waxyaabaas kula codsanayna. Baada ya hiyo jukumu la kwanza huwa tunataka serikali watusaidie ni ya kazi mtaa. Wengi wa vijana hawana kazi, wanakaa popote, ndio hali inabidi sasa serikali wazingatie maanani hali za vijana kwa ujira. Ya pili ni juu ya ujenzi ya barabara. Kila kiongozi wanapoingia huwa wanatuahidi ahadi ya uongo na hapa hapafai. Sisi wa BB1 hatuna kabila lolote, ukabila wala uchochozi yoyote isipokuwa tuko na maoni moja. Armuwana nanimu anan maka war BB1 idubadu aga kazi mtatok nukesa nkam talamesito mambo maendeleo hata wakina mama hasa wanito kajira njirtu sulle waniga dufeli yona lalo utata yengi mengi yon lalo rangi trabileni njalatu man nugosoma tokumbeg yor BB1 tok arkitoko fi qobtok amantana wani njiri wanur barbata tsunami sunkesi njir wanu feni maendeleo serikali taasisi nidaimun agnu toki takati sinu kejirun hata housing warikani jarani nukesi njir akasifu wana narge serikali ajikumu tokirkawe wayo amantan kuranga demu kuratabati imit kuranto krisas kwa vile wanu kadanu serikali agini wa vijana gadargu garuji urjirtunte naleni ujasunol dem unaga ganjo noolo ma qoro dhulhaaq noolo ma qoro dadkan geedaha waraabina kuma jirna aada tabar noo haysa dad masaakiin oo siyaasa aqaanin oo meel iska fidhaanahna afeesa ma wareegna tafadalisana maxamed aadan qaliif in aad na saacideyso oo noo kaalmaysa aan u baahan